kulanti waxaan wanaagsan khiyaarta naga daawato janaalka tusmada filmada meel walba joogtaan waxaad kusoo dhawaataan akhbaaraadkeena kuwada ugu xiisaha badan maanta laga qoraalmaha koonfurta iyo sidoo kale Bollywoodka. warbixintana waxaa ku bilaabi doonaa filimka Danki iyo lacagaha uu sameeyay maalintiisa shalay ee Arbacada. Danki ay wuxuu soo xareeyay lacag iska degan oo u dhaxaysa 8.50 karoor maalintiisa shalay ee Arbacadiisa koowaad, kaasoo filimka wadartiisa guud uu ka dhigay 141 karoor. filimkan ayaa wuxuu ka gaabiyo in laga filinayo in 150 karoor oo waxdaan kale uu soo gaaro. hase haatee filimka ayaa marka loo fiiriyo shuruuqan waxaa la sheegay inuu ku faa'iideysanin si wacan uusan ugu faa'iideysan fasaxyada ka jira ee qaybaha Christmaska iyo sanadka cusub. fasaxyada la galan laga yaabo in filimkan korkac kale uu sameyn karo. filimkan ayaa si laga filnaa ka gaabay marka loo fiiriyo shuruuqan filmihiisa ee sanadkan loo daawaday. filimkan ayaa ganacsi hufan wuxuu ka wadaa qaybaha Hindiya. filimkan ayaa la rabay in uu korkac 30 ilaa 25% uu sameeyo maalmahan ka soo gudbin. hasaata filimka gaabis ayuu sii waday. haddaba waxaan saleegi doonaa filimka sida guud khamiiskiisa teatarada koro. filimkan wuxuu limaad 28 karoor nadiif ah, jimcadii wuxuu limaad 20 karoor nadiif ah, sabtidii wuxuu limaad 24.50 karoor, axadii wuxuu limaad 29 karoor nadiif ah, isniintii wuxuu limaad 22 karoor oo nadiif ah, talaadii wuxuu limaad 9.50 karoor. filimka shal Arbaca wuxuu limaad 8.50 karoor. filimka sida guud waa 141.50 karoor. waxaan siracsan doonaa filim kale Salaar asna teatarada saaran lacagtiisa oo limaad maalinta shalay ee Arbacada. Salaar qaybtiisa Hindi ayaa si wacan isku celiyay Arbacadiisa shalay, kaasoo soo xareeyay lacag gaaraysa 9.25 karoor, waxaana ahayd lacag ka fiican filimka Danki marka loo fiiriyo. filimkan wadartiisa guud qaybta Hindi waxay maraysaa 86 karoor, taasoo ku dhow inta isbuuc iska dhim lacagiisa inay gaari doonaan 95 karoor. filimkan ayaa barabas filimkiisa ugu dambeeyay loo daawaday wuxuu lacagaha oo Hindi ka keenay 127.50 karoor sida guud ee qaybtiisa Hindi. asaata filimkan wuxuu noqday mid la iska diiday oo filimkaasna wuxuu filimka Adipurush. Salaar ayaa waxaa la sheegay inuu ka gudbi doono filimka Adipurush, kaas oo soo kalena tijaabadaas oo mar doono sanadka cusub marka loo gudo gol maalmihiisa kaasoo fasaxay Hindi ay ka jiraan, taasoo filimka uu ka faa'iideysan karo inuu ku wanaado qaybaha waqooyiga East India iyo West ee qaybaha kale ee dhexe. filimkan ayaa lacagaha sida guud marka la isku fiiriyo all formatska lacagiisa waxay maraan 270 karoor, kaasoo ku keenay 6 maalin, halka caalamka lacagiisa marka sida guudna ay ku dhowdahay ama kor u dhaaftay ilaa 400 karoor. filimkan targetkiisa wuxuu yahay in 600 karoor oo ka tilaabo soo qabto filimka reer Tamil ee Jailer, kaasoo hogaamiye ka Rajinikanth, waxaana suurtagal ah in filimkaas uu soo qaban karo. haddaba filimkan lacagiisa guud ayaan isla eegi doonaa. jimcadiisa koowaad filimka teatarada koro wuxuu limaad 15.50 karoor, sabtidii wuxuu la imaad 16 karoor oo nadiif ah, axadii wuxuu limaad 20.50 karoor, isniintii wuxuu limaad 15 karoor oo nadiif ah, talaadii wuxuu limaad 9.50 karoor, arbacadii wuxuu limaad 9.25 karoor. filimka si guud ee Hindiya waa 85.75 karoor. dhinaca kale daawada waxaan isla eegi doonaa Akshay Kumar, Tiger Shroff iyo Prithviraj Sukumaran ayaa dib waxay ugu midoobi doonaan in 3 hees ka mid ah ay ka duubaan filimkooda Prem Jyotirmaya. dhawaan ay ahayd markii la isla maray in filimka director-ka Cali Abbas Zafar ee filimka arrimaha actionka iyo sidoo kale argudashada Prem Jyotirmaya ee hogaamiye kan Akshay Kumar, Tiger Shroff iyo sidoo kale Prithviraj Sukumaran in muuqaalkiisa kala soo fasixi doono xilliga ay ku aadan tahay Republican Day-ga ee sanadka soo aadan 2024. sidoo kale filimkan actionka muuqaalkiisa kooban waxaa sheegay in lagu lari doono filimka Fighter, kaas hogaamiye Kane Hrithik Roshan iyo sidoo kale Deepika Padukone. iyadoo sidoo kale markaan warar kale ee kasoo baxaan filimka la xiriirta, taas oo warbaahinta markaan ay qorayso in Akshay Kumar, Tiger Shroff iyo Prithviraj Sukumaran ee dib ugu midoobi doonaan jadwalka ugu dambeeya filimkan, iyagoo sidoo kale ay rabaan in ay waxay ka bilaabay January 15 in ay duubis ay ku bilaabaan ilaa 3 hees oo filimkaasi qaybka. filimkan waxaa sheegay inta badan in la soo gabagabeeyay muuqaalada ugu muhiimsan filimka. markaan waxaa lagu wadaa in laga duubo kaliya 3 hees, kuwaas oo January 15 wixii ka dambeeya ay bilaabi doonaan. heestaas ayaa waxaa la rabaa in qaarkood noqoto mid lagu xayeysiin doono filimka, iyadoo location caalami ah lagu duubi doono 3daasi hees. heestaasi waxaa sheegay in composer ku noqon doono Vishal Mishra, kaas oo magac ku leh filimada oo heesaha ka qaada sida Jersey, Kabir Singh iyo Animal, waxaana ka dhigan markaan in lagu aamini doono mashruucan inuu heesiisa uu sameeyo. filimkan
ayaa waxaa lagu wadaa in la daawado igida ee 2024 taas oo sidoo kale qolada filimkan ay gudagali doonaan 3 bil oo campaign oo xayeysiin ugu sameyn doona filimka arrimaha actionka argudashada taas oo ka bilaaban doonta marka la soo fasaxo January 22-keeda ee muuqaalka kooban ee filimkaasi. dhinaca kale daawad waxaan isla eegi doonaa waxaa lagu dhawaaqay in la soo fasaxi doono seasonka labaad ee filimka Guns and Globes kuwaas oo hogaaminaya Raj Kumar Roy iyo Dulquer Salmaan. taxanaha ka soo wada muuqdeen Raj Kumar Roy iyo Dulquer Salmaan iyo Adish Ghorof iyo Gulshan Defeya ayaa wuxuu ahaa mid ay noqotay mid OTT-ga lagu soo fasaxay Agoosto 18-keeda. seasonkooda wuxuu noqday mid taageerayaasha aad ay kaga heleen markaan iyadoo la daba kacayo guusha uu gaaray seasonkooda ee Guns and Globes ayaa film soo saarayaashu waxay ku dhawaaqeen in season kale cusub in wadada uu ku soo jiro iyadoo laga daawan doono qaybta Netflix qaybta Hindi ayaa Instagram-ka arintaas soo dhigtay waxaan sheegay kaliya soo raacin season 2 oo wadada ku soo jiro kaas oo aad ka daawan kartaan ay yeesheen qaybaha Netflix oo qura iyadoo weli aysan shaacin xilliga rasmiga ah ee la soo fasaxay doona saati waxay carbaabeen kaliya in wadada uu ku soo jiro. qaybtii kood ayaa aad loogu helay markaan qof walba waxay suglaada qaybtiisa xiga in ay daawadaan. ugu dambeyn daawad waxaan isla eegi doonaa goorma ayaa duubis lagu bilaabi doona filimka ay ku mudoobeen Kartik Aryan iyo Dripti Dimri iyo Aashiqii 3. warar xiiso leh ayaa ku hareeraysan filimkan xiisaha leh ee Aashiqii 3 tani markii labadiisa qayb hore ay guuleysteen markaana xidiga magac weyn ku dhaxlay qaybaha Hindiya Kartik Aryan ayaa qayb saddexaad ee lagu aaminay iyadoo soo kale lagu soo dayay Trisha Dripti Dimri oo markaan jikada ay u shidanta kadib markii magac weyn ay ku heshay filimkeeda Animal waxaana directorka weyn Anurag Basu markaan ayaa warar waxay ka soo baxeen filimkan in duubis lagu bilaabi doono January ee sanada soo aadan oo maalmo qura naga harsan tahay 2024 in halkiis laga sii wado jabtarka Aashiqii 3 ee taxanaha filimkan ayaa waxay noqonaysaa in isku keenay laba isku cusub ee Dripti Dimri iyo soo kale xidigan Kartik Aryan iyadoo qof walba ay suglaala isfahamkooda xagga shaashada inay wada adagto iyadoo soo kale Anurag Basu oo mas'uuliyadda uu qaaday kaasoo rabo in uu filimkan halkiisa ka sii wado taxanaha guushiisa. filimkan qaybtiisa kooda ay waxaa la daawaday 1990kii waxaana la isku keenay laba filimada ku cusbaayan kuwaas oo halaabeen ay ku noqdeen kuwa caan ah sida Rahul Roy iyo Anu Agarwal. filimkaas ayaa wuxuu noqday mid super hit noqday sidoo kalena guuleystay. qaybtiisa labaad filimka ayaa Aashiqii 2 waxay ahayd mid la daawaday sanada 2013 waxaana la isku keenay Aditya Roy Kapoor iyo Shraddha Kapoor waxaana directorka Mohit Shuri waxaana soo kale noqday film hit ah. markaan qayb saddexaad ay qof walba isha ku haysaa iyaguna laga rajo qabo in qaybtan ay raaci doonto wadada qaybihii hore ee filimkan ay guuleysteen. intaaynu kusoo kubna daawad warbixinadan xiisaa leh laga qoraalmaha koonfurta ee Bollywoodka kuwaas oo saran waxaan warbixinada ugu dambeeyay la wadaagi kartaa inta wadaashana ku taxan barta tusmada filimada warbixinada ka sheegay noo saar soo kala saxaabtiin la wadaaga meel walba joogtaan waqtiga ha idin wacnaado.